filimkan waxa uu ku bilaabanayaa Jom Shamsham oo 2 sano suuxsan sabab la xiriir qalad oo ka galay dhakhtarka Lu Yidink ay agtiisa fadhiyo ilmada ku qubanayso Jom Shamsham waa soo kadib marka uu ka tagay gabadh uu jeclaa gabadh isaga uu sheegtay inuu shaqo la'aan yahay lacagtiisana ku dhamaatay siyaarka isagoo dareemaya murug iyo kalinimo Jom Shamsham wuxuu go'aansaday inuu siyaarka iska daayo si uu u muujiyo jacaylka gabadha saaxiibkiisa Lu Yidink ayaa talahan ugu soo jeedinaya inuu iska daayo daaweynta korontada maskaxda si uu ugu bogsado xanuunka iyo balwada Jom Shamsham oo rajabeel ah uu aqbalay fikradaas u muuqata doqonnimada kadib 2 sano suuxsan Lu Yidink ayaa ka cudur daatay inuu hakii soo joodiyay daaweynta laakiin Jom Shamsham ayaa si degan ugu falcelinaya inuu sheegay inuu mahad celiyo wali inuu soo toosay kalkaaliso ayaa markaas qolka soo gashay iyadoo keentay daawo midibkeedu uu yahay hurud Jom Shamsham si degan ayuu u qaatay laakiin wax la yaab leh ayaa dhacay kadib maalintii xigtay intii lagu jiray baaritaanka dhakhtarka wuxuu ogaaday dhaawac maskaxeed u baahan soo kabashada dheer dhakhtarkan Lu Yidink wuxuu kula taliyay inuu si garab istaagi doono saaxiibkiisa intuu soo kabanayo sanado kadibna Shamsham wuxuu bilaabay inuu arko waxyaabo aan caadi ahayn markastoo hurdo dadka ayuu arkaya shimbir ama duqsi si uu sida daaway aragtida Shamsham wuxuu iibsaday muraayad casaan ah si wax walba u arko casaan si wanaag kadib markii uu dhameeyay xilli soo kabashada wuxuu shaqo helay maalin maalmaha kamid ah madaxda shirkadda Shinjim Shamsham ay u soo bandhigay arrin lama filaan ah wuxuuna rabay inuu isagu u dhiibo jagada madaxda shirkadda Shamsham aad ayuu ula yaabay maadaama shirkadda uu ka shaqeynayay hal sano oo kaliya laakiin Shinjim wuxuu u sharaxay in Shamsham uu qabtay shirkadda wax weyn sida darteed Shinjim wuxuu rabay inuu hoggaanka u daayo jiil cusub oo geesi ah markaas ayuu Shamsham dareemay farxad aad u weyn fursad u helay waxay cadeynaysaa in aan la yeesi karin mar dambe si kasta haatee walwalba ka qaba xaaladiisa markasta uu arko midibka hurida dadka agtiisa joog waxay isku bedelayeen shimbir duqsi qeeladiina caadi ah ugu dambeyn Shamsham wuxuu isweydiinayaa sidee ayuu shirkadda hogaamin karaa isagoo la daaldhacayo dhibka caynkaas intii guriga ku soo socday tiim ayaa u sheegay hambaliyada dalacsiinta uu helay laakiin Shamsham waxa uu sheegay inay si rasmi ahayn maadaama uu wali ka shaqsan yahay gaar ahaan maadaama yimid hore u socday xaaladiisa yaabka leh idin oo kaftama ayaa ku dhiirigelinaya in dhib kasta oo xal leeyahay si uu baro hoggaanka yimidna wuxuu u dhiibo mashruuc uu tababarayo subaxdii dambe Shamsham waxa uu yimid dhismo guri ah halkaas ayuu idin ugu warmay inuu haysto koox xayisiin ah oo san hadda si toos ah u kormeeri karin wuxuu shaqada hoggaaminta u dhiibay Shamsham kooxdaasna waxay ka koobneen kan Janaana maamulaha iyo shakhsiga ugu muhiimsan muuqaal ahaan Hejin qoraaga Heyin kaaliyaha Janaana Tayinka kaamir qaadaha Tayinka suu tafsiraha muuqaalada ugu dambeyn idin wuxuu muujinayaa rajo ah Shamsham si sharaf leh ugu matali doono maantaasna kooxda waxay duwayaan muuqaal karin Hejin ayaa sharaxay in nooc muuqaalada aad loo jecel yahay sababtoo cuntada Jinaan la cuno waa mid la amaano inta uu Shamsham uu goobta ku sugnaa ayaa waxa laga codsaday inuu tijaabiyo cuntada uu sameeyay Jinaan si lama filaan ah falcelinta waxay noqotay mid aad loo xayisay si degdeg ah ay ku faaftay baraha bulshada isla markii Jinaan ayaa amaantay wajiga muujinta Shamsham kooxdan waxay go'aansadeen inay sii wataan duubista karinta cuntada falcelinta inkastoo uu dareemay niyad in lagu qiyaamay Shamsham wuxuu isku dayay inuu dhowr jeer yimid laakiin idin markasta uu diiday wicitaanka si kasta haatee Shamsham waxa uu muujiyay xirfadiisa shaqo aad u sareyso wuxuuna ka qayb galay duubistiisa xigtay markii uu Shamsham uu damacsanaa inuu gal goobtii duubista nin alaab keenay oo xiran jaakada hurud ayaa ka soo horbaxay taasoo kicisay xaaladiisa laakiin markii Jinaan uu yimid waxa dhacay arrin lama filaan ah ma oo kaliya in la arkay duqsi laakiin halshireenkii ayaa si lama filaan ah u baaba'ay Shamsham waa uu laab sababtoo Jinaan isku bedelin shimbir sida dadka kale markuu gudaha u galay waxa uu arkay taalo shimbir duqsi ah oo la mid ah kuwii uu markasta arki jiray marka uu hurud ka arko laakiin markan Shamsham ma dareemin calaamadii caadiga ah ee uu arkay maalin dhan uu fikiraya isagoo la yaaban sababta kadib markii la duway muuqaalka Jinaan ayaa u soo bandhigtay inuu gaariga u raaco gurigeeda intii ay safarka ku jireen waxay isdhaafsadeen sheekooyin fudud qosol taasoo ka dhigtay fiidkii diiran oo xiiso leh ugu dambeyn Shamsham waxa uu dareemay inuu si gaar ah u soo jiidinayo Jinaan subaxdii dambe isagoo caro ka buuxo Shamsham wuxuu si toos ah u hadlay Lu Yidink wuxuu u muujiyay caro xoogan isagoo eedeynaya Lu Yidink inuu u dhigay damin wuxuu is weydiisay saaxiibkiisa ugu dhaqmi karaa si aan cadaalad ahayn Lu Yidink si degan ayuu u jawaabay isagoo sheegay in wax walba loo sameeyay lagu caawiyay Shamsham inuu hogaamiyo noqdo si uu aasi u noqdo laakiin ugu dambeyn Yunan waxa uu qaray in sababta dhabta ay ahayd inuu isku daayo inuu isbaro Shamsham iyo Jinaan markii uu maqlay sababta dhabta ah Shamsham isla markii Jinaan ay ugu yeeray casho goobtuna ma ahayn meel qaali ah waa meel sahlan oo caadi ah halkaas ayuu Shamsham inuu xaqiijiyo halkooyinkiisa dhabta ah inuu baaba'ay waxa soo baxday in markii uu la joogo Jinaan aysan halkooyinka ku dhicin xitaa markii ay Jinaan dib ay ugu soo laabatay agtiisa xaaladiisa sida caadi ah tani waxay Shamsham ka dhigtay mid aad u hubtay in Jinaan ay tahay furaha bogsidiisa waqti kadib Shamsham waxa uu bilaabay inuu rumaysto Jinaan inay tahay qadarkiisa wuxuu la qaatay waqti badan iyadoo ay kooxdiisa isagoo la wadaagay qosol kaftan iyo waqti farxad leh qosolka Jinaan ayaa noqday cod degan oo u maqlo Shamsham muddada uu sii joogo Shamsham wuxuu yeeshay kalsooni badan oo wajahday xaaladiisa mar dambe uu maqlay halkooyinkii shimbiraha iyo duqsiga Shamsham maalin kasta waxay u muuqatay mid ifaayo marka uu helo Jinaan habeen kamid ah Lu Yidink waxa uu arkay isagoo la kulmay Jinaan wado xasilooni ah Shamsham ma ogeyn waxay ka wada hadlayaan balse kulankaasna wuxuu u muuqday mid si qoto dheer u taabtay Jinaan waxay noqday mid xasaasi ah wajiyaduna waxa ka muuqday galgacayl iyo murugo isku dhafan xitaa markii Shamsham uu kariyay baaquli baasta Jinaan isla filaan ayuu u waday markuu weydiiyay hadii cuntada aad u kulushahay Jinaan waxa uu sheegay
sheegtay inaysan ahayn cuntada aad u macaan tahay shawshaw isaga yar ayuu isfaaniyay oo sheegtay in cuntada uu ka bartay qof maalintaasna shawshaw iyo Sanaan waxay waqti qaateen iyagoo wada daawanayaan filim jacayl waxay u muuqatay sida balan dhab ah oo jacayl daqiiqada ka mid ah Sanaan waxay weydiisay shawshaw haddii uu ku dhiirin karo inuu shumiyo su'aashaasna waxay si xad dhaaf ah u karaacday wadnaha shawshaw wuxuu dareemay in laga yaabo inay tahay waqti hore balse ma doonayo inuu seego fursadda uu ku dhungi karo gabadha oo aad ku jecel yahay laakiin ugu dambeynna waxay noqotay kaftan Sanaan ma inaysan mid dhab ah waxaana shawshaw soo wajahday ceeb iyo niijab maalmo kadibna waxay u muuqatay dhammaan kooxda inay u arkayeen shawshaw inuu yahay xubin ka tirsan hay'adooda shawshaw iyo Sanaan maalin gaar ah waxay dawis ugu tageen dugsiga si lama filaan ah markii ay yimaadeen Hejin ayaa yiri goobtii waa bilicsan wuxuu xusay xaaladda dugsiga inay si toos ah ugu yimaadeen Sanaan markaasina shawshaw waxa uu dareemay farxad iyo weliba la yaab isku dayay inuu xasuusto haddii uu hore u bartay Sanaan dugsigaas dawista ayaa bilaabatay laakiin shawshaw wuxuu ku dhibaatay xafidda qoraalka Sanaan ayaa dhowr jeer xasuustay inuu si dabiici ah u jilo halkii uu si xad dhaaf ah diirada u saari lahaa xeedhaha markuu taladeeda qaatan shawshaw waxa uu bilaabay inuu si xor ah u jilo isagoo aan xasuusta qoraalka ku mashquulin goob kamid ah muuqaalka Sanaan ayaa lagu weydiiyay inay sheegto kaftan ku saabsan daanyeer iyo sac markaas Sanaan waxay u muuqatay mid runtii ku raaxaysta hawsha dawista fiidkii muuqaalkaasna wuxuu u muuqday inuu muhiim gaar u leeyahay Sanaan wuxuu ku soo celisay xasuus gaar ah oo qalbigeeda ku jirtay kadib markii shawshaw uu dhameeyay qaybtii dhammaan kooxda ayaa u hambaliyay Sanaan waxay u cudur taaratay dhabarka u taagtay kaliyeed ahaato nasiib wanaag way aragnimadii shawshaw uu lahaa kooxdii ay siiyeen kalsoonidii uu aqbalay Sinji shawshaw mardan ma dareemay cabsi shaki hanti la'aan noloshiisa ku saabsan wuxuu hadal ka soo jeeday horta shaqaalaha shirkadda inkastoo qaar ka mid ah weli ay u muuqdeen sidii shimbira ama duqsiga haddana dhiirigelin iyo garab istaag ay u haysanaan waxayna u hayd awoodiisa ugu weyn joogitaankeeda ayaa sii geesnimo ku wajahan wax walban u muuqdeen kuwa aan macquul ahayn intii uu hadalka jeedinay shawshaw wuxuu amaanay Sinji uu yahay sikoorka uu sareeyay shirkaddan si layaab leh u hormariyay shirkaddan waxay gaartay heer guul sare si kasta haatee shawshaw wuxuu ku dhawaaday hoggaanka hoostiisa shirkadda ay gaari doonto heerka sare halkii ay hadda joogtay wuxuu dalab deg ku sameeyay guushiisa isagoo la jooga koox wakaalada Sanaan dhammaan waxay u dabaaldegeen guusha laakiin farxadda socotay Sanaan waxay u muuqday qof aamusan aan caadi ahayn intii ay dabaaldega socotay Hejin ayaa istaagay oo sheegay Sanaan inay doonayso inay wax sheegto markii qolku aamusay Sanaan waxay shaacisay inay go'aansatay inay ka tagto kooxda waxay sheegtay inay kooxda la jirtay muddo 3 sano ah isla markaasna ay rumaysan tahay in 3 sano ay ku filan tahay Sanaan waxay rabtay inay wajahdo caqabadaha cusub ee ka baxsan kooxda war sheegista lama filaanka waxay ku rabtay shawshaw wareer laakiin wuxuu dareemay inuusan xaq u lahayn inuu su'aalo ama saameyn ku yeesho habeenkaas Sanaan waxay u mahadcelisay shawshaw doorkii uu ka qaatay kooxda sida ay ugu caawisay inay gaaraan heerarka uu sareeyo iyagoo koob qamri gacanta ku haya ee isdhaafsan eegmo u muuqato macsalaameyn dareen leh bil ayaa ka soo wareegtay bixitaanka Sanaan waxaana shawshaw si buuxda u wareegtay mas'uuliyadda wakaalada hal mar ku xasuusiyay muuqaalka subscribe iyo saar dhammaan mushaarada xayeysiinta ee ka imaan jirtay xafiiska waxa gacanta ku haya kooxda maalmaha kamid ah shawshaw waxa uu muuqday inuu gaaro garasho qoto dheer ah dhaqamo caadi ah oo noloshiisa ka maqnaa asigoo gacanta ku haya shimbir yar ciyaar ah xasuuso hore oo si xoogan ugu soo dhacay waqtiga shawshaw wuxuu si dhab ah u fahmay Sanaan oo ahayd gabadhii ugu horeysay u jeclaaday shawshaw waxa uu ogaaday in 3 sano la soo dhaafay inuu ka caawinayo xasuus la'aan dadka ay u bedelmayeen shimbir ama duqsi waxay sabab u ahayn dhaawac maskaxda shoog uu qaaday taasoo tartiib ah qayb weyn ka mid ah xasuustiisa xasuusaas tirtirma waxay si gaar ah ugu mid ahayn kuwa kula xiriiro Sanaan dhammaan dhaxgalkii uu lahaa Sanaan bilii ugu dambeeyay waxay noqdeen xasuus laga jaray hore uu samray laga bilaabo cabitaanka wadaagi jireen ka hor duubista ilaa miiska romeenka ay jeclaan ilaa goobta dugsiga ay ku duubayeen dhammaanna waxay ahayn waqti hore la wadaagay xilliga shawshaw waxa uu ahaa arday degan saaxiibo badan aan lahayn wuxuu mar walba dareemi jiray kalnimo habeen ay qalin jibinayeen wuxuu si lama filaan ah u arkay Sanaan oo kaliya fadhiisa saqafka dugsiga asigoo walbasan shawshaw ay u soo dhawaaday Sanaan oo fadhiisa saqafka sare wuxuu weydiiyay sababta halkan u joogto Sanaan aysan markaba jawaab siin shawshaw wuxuu isku dayay inuu xaaladda jilciyo isagoo ka sheekeynayo kaftan ku saabsan daanyeer iyo ugu dambeynna Sanaan si tartiib ay u furmatay oo jawaab siisay su'aadii xigta markii ay Sanaan muuqatay inay si sahlan u heli karin gaadiid shawshaw ayaa u soo bandhigay inuu geeyo laga bilaabo maalintaas xiriirkooda wuxuu noqotay mid aad u soo dhow maalmahoodan waxay noqdeen kuwa ay wadaagaan farxad iyo qosol xitaa waxay ku riyooday inay noqdaan youtubers caan ah si kasta ahaatee safarkooda waxay mar walba habsami u socdo shawshaw oo shaqaan walwal daal badan la kulmay wuxuu bilaabay inuu siyaar cawsi niyad u qaboojiyo dhaqankaas ayaa sii xumaaday ilaa heer siyaar uu la seexdo daawadii muuqaalkan subscribe saar nagu soo biir hadda waa soo badi doonaa muuqaalkan iyo muuqaalo badan